kumanaanka ardada Soomaaliyeed ee wax ka barata dalka Suudaan caasimadiisa iyo goboladiisa dalka Suudaan ayaa saakay dhammaan u dareeray fagaarayaasha salaada lagu tukanayay ee magaalada Khartoum karoonka kubadda cagta ee ku yaala jaamacadda Afrika caalamiga oo ay wax ka bartaan in ka badan 2,000 arday Soomaaliyeed ayaa saakay waxa ardayda intooda badan ay ku tukadeen salaadii ciid fidriga qaar ka mid ah ardayda oo TV-ga qaranka Soomaaliya kula hadlayay iyagoo ku sugan garoonka salaada ku tukadeen ayaa waxay u sheegeen TV-ga qaranka iyagoo magacyadu ku bilaabay sida Cabdirashiid Sheekh Jaamac وكانوا يحكمون الله أكبر الله أكبر كان عاصمة خرطوم وحنا ولد الصوماليين الله يمان والباقي الجيران عيد سعيد عيد سعيد كل عام وأنتم بخير. أبو فرصة كفسر ما أنت يا سلام الساعة. السلام يا هلا قرامة ضمان والدك والديك ومد الصوماليين مان والباقي الجيران كجيران وحنا الله هاي ألف مبروك. الرحيم مقعد أنا سعد سلام سعيد كنا على خرطوم ودك السودان. أنا غفا يسمي في السودان. أي سي TV قرنكا وري عبد النبي وحان هلكن السلام يا فضل عيد فدريغا ومد صوماليا دمان ميل كسو جوجتو خاصة هو ودنكي كسوغان وان ليه كل عام وانتم بخير يا دمان ardada Soomaaliyeed ku dhaqan dunida daafeed khaasatan waddankeena Suudaan ku dhaqan halka waxaan salaamayaa si gaar ah familkayga iyo qoyskayga garow oo Soomaaliya ka tirsan waxaan leeyahay raadi muqdisho aad baad ma santiin dadka xarajeen sanadkan kuwada in waddankeena waxaan rajaynayaa dowlad khayr qabto noo dhawaato insha Allah. بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Maxamed Cabdinuur Barre أنا كمل أرضية Soomaaliyeed ee Suudaan ku gaar ahaan caasimada Suudaan Khartoum anigoo ka faa'iideysanaya fursadda la siiyay TV qaranka Soomaaliyeed waxaan halka ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaanba yani kuwa kala sugan daafaca caalamka gaar ahaan kuwa ku sugan dalka Soomaaliyeed qaasaan waxaan salaamayaa qoyskayga oo ku sugan degmada Baraawe waxaan leeyahay maadaama ay in badan ka maqnay farxada idin noqotay muuqaalkayga iyo hadalkayga aad maqlaysaan waxaan insha Allah رجعنا مدرسة Soomaaliyeed guud ahaan yani dhibta haysta inuu Ilaahay ka dulqaado ciidan insha Allah ciid xigtana iyagoo nabado dawlad laho wada jira insha Allah inay wada ciidan biilaahay بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Yaala Axmed Sheekh Abdilaahi kana mid ah ardayda Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Suudaan runtii waxaan ka salaamayaa guud ahaan caalamka islaami khaasatan bulshada aan ku abtirsanay ee Soomaaliyeed waxaan kaloo ka salaamayaa dhammaan akhyaartayda walaalahay iyo dhammaan family-ga iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan halkan soo kale uga mahad celiyo warbaahinta qaranka Soomaaliyeed iyo guud ahaan warbaahinta kale oo ku shaqeynaya laftooda xaalado adag waxaan leeyahay guud ahaan caalamka islaami iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed taqabbalallahu minni wa minkum rabadaanteedana waxaan rajaynayaa insha Allah in qof kasta waddankeena aan jeclayno ku ciidno isagoo aad u wanaagsan insha Allah inta sidoo kale qaar ka mid ah ardada Soomaaliyeed jaamacadda Afrika ee caalamiga wax ka barata ayaa soo bandhigay ciyaaraha qoobka ciyaarka ay Soomaalida dhaqanka u leeyihiin iyadoo ciyaarahaasna ay qayb ka ahayeen walaalaha Jabuuti maadaama aan isku dhaqan ka nahay kastaba ha ahaatee magaalada Khartoum ee caasimada dalka Suudaan ayaa saakay waxa ay ahayd maalin aad u farxada oo dadku isku soo baxeen sida Soomaalidana ay u gaar ahayd ardada Soomaalida oo isku imaanaya meelaha ay u gaarka yihiin sida jaamacadda Afrika iyo meelaha u dhow waxaana ay inta badan ardada u rajeynayeen dawladda Soomaaliya inay noqoto dawlad xoog leh isla mar ahaantaana ay si ay waxba ugu bartaan gudaha dalkooda Soomaaliya Fido Maxamuud Fido TV-ga qaranka Soomaaliya Khartoum